kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale xubinteena mikrofoonka wareega oo aad ka dhageysataan Radio Africa 95.3 MHz. Mikrofoonka wareega wuxuu idin leeyahay qof walba intuu cunayo ciidamiya cunada iyo caafimaadka waxaanu dooran weynay nidaam cunno oo sugan. waa ciwaanka toddobaadkan ku soo qaadanayno xubinteena mikrofoonka wareega. cuntada waa shay kasta oo la quuto si loo helo nafaqo iyo awood jirka u baahan yahay si uu sii noolaado. sidoo kale waa walax nooluhu quuto taasi oo unugyada jirka siisa tamarta ay ku shaqeeyaan. sida caadiga cunnada waxaa laga helaa dhirta iyo xayawaanada labadoodaba waxayna ka kooban tahay nafaqada sida duxda, borotiinka, fitamiinka, macdano iyo noocyo kale oo nafaqo ah kuwaasoo taageera tamarta uu ku soconayo xubnaha jirka. dhammaan aadamaha xaq ayuu u leeyahay helitaanka cunnada iyo weliba cabitaan biyo. haddaba waxaan hordhignay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool Suudaan su'aalaha ma leedahay nidaam cunno oo sugan? ma tahay cunnadaada mid isku dheelatiran? imise jeer ayaad cunaysaa? su'aalahan aan weydiinay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool Suudaan ayaa ah jawaabaha nooga soo baxay sida tan. horta waxaa jirta wadankii hooyo lama joogo, Soomaaliya lama joogo, Suudaan qurbaa la joogaa. marka way adkaanaysaa inaad baxati cuntadaada xilligaad cunayso aad u yeeshid waqti. laakiinse waqtiga kaliya ee cuntadu nidaam ii leedahay waa waqtiga cashada oo aan casheeyo habeenkii 9 ama 10. badanaaba waxaan cunaa cunto dheelitiran oo nafaqo leh. cuntooyinka yaryar waliba iskuma badiyo, laakiinse waxaan cunaa cunto dheelitiran oo vitaminiska leh. badanaaba ku vitaminiska khudaarta kuwaas baan cunaa. waxaan cunayaa 2 jeer baan cunaa caadi ah. waa habeenkii iyo subaxii markii gaadho 10 subaxnimo amba 9 subaxnimo. 2 jeer baan wax cunaa. bismillah. marka hore saaxiib aad baa kaga wada celinaya maadaama aan soo bandhigtay mowduuc aad muhiim u ah oo mudan in laga doodo. mowduuca hadii loo fiiriyana waxay ku xiran tahay macnaha qof walba meesha uu ku nool yahay ama qaabka noloshiisa ay tahay. shakhsi ahaan aniga waan leeyahay nidaam cunno oo sugan maadaama inta badan ardayda inta badan ama aan nahay dad ka baxsan dalka ku noolaayeen waalid la nooleen oo kale u nool. marka ay adag tahay qofku inuu yeesho nidaam cunno oo sugan. laakiin shakhsi ahaan anigu waa leeyahay nidaam cunno oo sugan. tan kale cunnada aan cuno way ka kooban tahay cunnooyin ama la dhihi karo waa cunno isku dheelitiran marka loo eego waxyaabaha kooban tahay sida borotiinka, vitaminiska iyo karbohaydraytka. guud ahaan waxaan dhihi karnaa waa cunno isku dheelitiran oo hadba dhan walba laga fiiriyo isku dheelitiran. caadiyan sida aan maalintii wax cunno kale inta waqti aan wax cunno waa 2 waqti ugu badnaan. wallahi waa leeyahay nidaam cunno oo sugan. waqtiga nidaamka ii degsan waxa weeye inaan subaxiyo kala quraacdo iyo qadada oo duhurkii ah iyo habeenkii casha ah. saddexda jeer. wallahi hadba waa mutaqana si weeye laakiin badanaa way dheelatirantaa cuntada aan cuno. 3 jeer maalintii, subaxii oo kale iyo duhurkii iyo habeenkii. waa hagaag dhageystayaal weli waxaad dhageysanaysaan xubinteena mikrofoonka wareega oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno cunnada iyo caafimaadka. Suudaan waxaa ku nool Soomaali badan kuwaasoo u badan arday wax ka barata jaamacadaha Suudaan waxayna badankooda ku saamoobeen nolosha wadankan. guud ahaan waxaa wadankan cunadiisu tahay cunada loo yaqaano baladiga oo uu fuulka horkacayo kuwaasoo la sheego inay aad u xoogan yihiin hase yeeshee ka duwan cunadii wadanka aan ku naqiinay una baahan la qabsi. qiimo ahaan marka la eego ka jaban cunooyinkii kale aan naqaanay cunistooda sida bariiska iyo baasada. waxayna inta badan dadka Suudaanta cunayaan 3 jeer intii haleelaysaba. Soomaalida ku nool Suudaan ayaa badankooda la mid ah dadkaas Suudaanta iyagoona ku cunno ah halka qaarkood ay haysato cunno xumi ama cunnada aan waqti go'an u lahayn. dhanka kale cunno xumida ayaa leh khatar caafimaad darro. sanad kasta cunnada aan cunno ee aan dheelitirnayn ama waqtiyeysnayn ayaa la sheegay inay u dhintaan 12 milyan sida lagu sheegay daraasad cusub oo dhawaan soo baxday. daraasad ay sameysay xarunta Lexet ayaa lagu sheegay in cunno xumada ay ka halis badan tahay sigaarka xitaa oo loo maleynayo inuu yahay dilaaga ugu weyn. waxyaabaha farta lagu fiiqay ayaa waxaa ka mid ah cusbada. haddii rootiga lagu cuno ama suugo ama cunooyin lagu kariyo waxay waxyeelo u geystaan qofka caafimaad ahaan haddii aan laga taxadirin. cunooyinkaas halista leh ayaa ah cunooyinka ay ku jiraan cusbada saa'idka ah, cuntada ay ku yar yihiin miraha la cuno, cuntada ay ku yar tahay khudaarta. sidii arrintan u sababi kartaa geeri. haddaba
cunnada oo aan la cunin ama laga raago ayaa iyadana dhalisaa inuu daciifo difaaca jirka, taasoo sababta cudurro fara badan. sidoo kale ku dhawaad 10 milyan oo ka mid ah 11 milyan ee hore usoo sheegnay ayaa u geeriyooda sababa la xiriira xanuun ku dhaca habdhiska dhiigga mareenka, wadnaha iyo xididdada dhiigga. taasina waxay cadeynaysaa sababta ay dheelitirnaan la'aanta cunnada ay u tahay dhibaato aad u weyn. raashinka oo aan dheelitirnayn ama cusbada ku badan tahay waxay kor u qaadaa cadaadiska dhiigga, taasina waxay kor u qaadaysaa khatarta ka dhalan karta inuu wadnaha istaago ama shalaal ku dhaco. miraha qudaarta la cuno iyo midda la kariyo ayaa iyaguna saameyn ka duwan leh oo waxaa loo yaqaanaa cardioprotective ama difaaca wadnaha, waxayna hoos u dhigaan khatarta ka imaan karta wadnaha. kansarka iyo xanuunka sokorta ayaa iyaguna waxay sababaan dhibaatooyin kale ee lala xiriiriyo dhimashada. tayada cunnada aad cunayso waa muhiimad markasta iyadana loo fiirinayn miisaankaaga. arrinta ugu muhiimsan waa in lagu dadaalo in la cuno qudaarta, miraha, cunooyinka aan la buunsho bixin iyo looska, la iskana yareeyo isticmaalka cunooyinka aan dheelitirnayn waqtigoodana aan la cunin. waqti go'aanna la cuneeyo, laakiin lacagta ayaa iyaduna mushkilad kale ah. qiyaas ahaan haddii aad maalin kasta 5 waqti aad cunayso qudaar, waxaad isticmaashay 52% raashinka ku bixi lahaa guriga oo dhan. cunooyinka raqiista ah ee dhadhanka wanaagsan ayaa markasta caafimaadka u fiican. ugu dambeyn, waa mikrofoonka wareega oo idin leh, qof walba inta uu cuno ayuu ciidamiyaa. guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa xubinteena mikrofoonka wareega oo toddobaadkan kusoo qaadanay cunooyinka iyo caafimaadka. intaan ku kulmayno xubintan oo kale ah waa anigoo xasan abqari oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.